بسم الله الرحمن الرحيم وأنا وناكسن خيارته أود يقضى ونساي كسر وادا ورركي عالم كقوة يوجد بي وده هذا أنا اللي كذا وطن بيجكن وطبعاً تطبيش أفراد لبضة كون لبعتني اللي معلومات كنتوا صانعية وحدكم أغلى دونتان حكوا سابسن مراكب كام بحي إيران oo jiray xanimaada Mareykanka iyo xog cusub oo halkaasi ay kaga hayo intaan in soo gudbin fadal muuqaalka leega saar oo share garay hadii aad naga daawanayso YouTube hadii aad naga daawanayso Facebook labada muuqaalka qabo oo share garay oo leegan ugu dadaal aynu ku bilownay saaxiibayaal ugu yaraan 4 markab oo xamuul ah ayaa la xaqiijiyay inay ka gudbeen xanimaada dalka Mareykanka uu ku soo rogay dhaqdhaqaaqa badda Iran kadib markii ay ka ambabaxeen dekada dalkaas sida ay muujinayaan xogaha laga helay ilaalada la socodka maraakiibta waa kooxahaas la socda xogaha maraakiibtan oo dhamaantood ah kuwa qaada konteerada ayaa 3 kamid ah ay wateen calanka Iran halka markabka afraadna ee lagu magacaabo Tafa 4 oo ka diiwaan gashan jasiiradda Comoros sida lagu sheegay xogaha rasmiga ah ee maraakiibtaas xanimaadan oo la sheegay inay bilaabatay maalintii Isniinta ayna qayb ka ahayd cadaadiska siyaasadeed iyo midka amni ee Mareykanku uu saarayo dhaqdhaqaaqa maraakiibta la xiriira Jamhuuriyadda Islaamiga Iran inkasta oo aan si rasmi ah loo shaacin faahfaahinta xogahaas markabka lagu magacaabo Azerbaijan ayaa la sheegay in uu ka shiraacday dekada Shahid Rajeh ee Iran isagoo si toos ah uga gudbay xariiqinta xanimaada ee Mareykanka oo saaray Iran isla markaana lagu waramayo inuu ku sii jeedo dekada Gandala ee waqooyi galbeed ee dalkaasi Hindiya sidoo kale markabka Ashkan 3 ayaa isna ka ambabaxay dekada Chabahar ee bariga Iran waxaana xoguhu sida ay sheegayaan la socodku waxa ay muujinayaan inuu haatan lagu arkay magaalada dekada leh ee Karachi ee dalkaasi Pakistan markabka kale ee lagu magacaabo Shabis isna ka baxay Jabar waxa lagu arkay isagana meel u dhow xeebaha koonfurta galbeed ee dalka Hindiya isagoo ku sii jeeda magaalada Zhunji ee dalkaasi Shiinaha dhanka kale markabka afraad ee Tafa oo ah isna markabka kaliya ee aan sidenin calanka Iran ayaa la sheegay inuu ka ambabaxay Bandar Imam Khomeini waxaana lagu sii waramayaa isagana inuu ku sii jeedo xeebta galbeed ee dalkaasi Hindiya isagoo u sii socda dekada Jawahar Nehru ee Bombay caasimadda Hindiya ee labaad xogahan ayaa lagu saleynayaa inay imaanayaan nidaam raaca maraakiibta caalamiga ah kuwaas oo muujinaya goobaha ay ku sii jeedaan iyo jihada ay u socdaan inkastoo ay jiraan walaacyo lala xiriirinayo saxnaanta xogahan waa sida warka loo dhigay saaxiibayaal khubaro amni oo badda ah ayaa tilmaamaya in maraakiibta qaarkood ay damiyeen qalabka raadraaca ama ay diiradda saareen macluumaadka marinka habaabinta si ay uga fogaadaan kormeerka ama cunaqabataynta taasoo adkeynaysa khatarta iyo xaqiijinta xogaha noocan oo kale ayaa warbixinta lagu sii sheegay saaxiibayaal intii aynu ku kulmi doono mowduucan iyo mowduuc lamida fadlan muuqaalka leega saar uga ciido baahan nabaday